anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada soo koray dee family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tegay soo aan qaaday soo caqliyeystay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inantii ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanayeen marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray ma sha Allah si fiican buu soo kariyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligii joogo oo waxaas aabahay guursaday iyo anigii labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilkii yaraa aniga guriga ku soo hadnay wiilkii yaraana intiisa badan isaga laftirkiisu wiil buu ahaa aabahay wuu la socon jiray aabahay wuu la joogi jiray kadib aniga soo hadhay anigii meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi karta waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan bii geeyay iskuul layguma darin waxbarasho kale layguma darin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri lagiyo oo dhan inaa waqtiyada roob ku daayaan inaa tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baan soo hooyanaya tobanka habeennimaadii doonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha u soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigoo walibana ilmo yaroo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaadhin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanayaa qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inaan hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waan u sheegay arrinkii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore wuu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya iga soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u imiday hooyadii markaan u imiday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin aan waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u imiday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib liigu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan ir hooyadii baan rabaa aabay dib gaarigii soo saaray Hargeysa dib u soo noqday hooyadii baan u imiday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku geysay inuu 3 haysto iyadana 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo anigu hooyo rabay inaan la joogo ma rabay inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo diray Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u imid hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto anu 3 waan haysanaya asuu 3 haysto adigu subaxnimadii baa mar labaad la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xagan anigu waxaan rabaa hooyadii inaan hooyadii la geeyo aabahay uu diiday wixii hooyada ku soo celisay 2 jeer oo hore mar dambe lagu diray iska joog
awowgay hooyaday dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooyaa rabaa in la geeyo awowna uu itiiday waxaa la sheegay in hooyaday xaafaday deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyey inaan gurigii aabahay Ethiopian oo jooga kasoo baxsado oon anigoo welibana aad u yar oon kala garanaynin dhulka wadanka magaalada diina xaggana Somaliland tahay xaggaasina Ethiopia tahay oon kala garanayn gaadhigan soo raacay xaajiyad baan dhagada kasoo raacay Hargeysa mitay hooyadii waan mitay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxaa jirta macallimad bay ahayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaadhiga markaan kasoo dego inaan Hargeysa imaado inaan gaadhi iskuulkii magaciisan xasuustaa mogtahay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii ba macallimad ka ahayd markaa waqtigaan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu weyn bay iskuulka joogtay iskuulka hortiisaan imiday anigoo ilmo yara oon magaalada kala garanaynin cidna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kudhi waxaan rabaa gabadha magaca la yidhahdo in iskuulka layga yeedho waa laygu yeedhay gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay ahayd markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ahayd iyadu way weyneyd way og tahay xaalka sida jira waan fadhiyey waxaa laygu yidhi iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Ethiopia ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyey iskuulka hortiisa weliba anoo ilmo yar oo aad u yar حتى أنت ترى ما حسوسته واسوقي كبدي ولا شهد مركي كسب بحذي ويسكك قرص أرتدي بيكون حدومتي ويسكك قرصي أنا ماشي سيدي شنتي كلامني ما فديه وسوقيه وسيلينا تبي بكون صباح ساعة إنا تمرك يصاب بحذي يسكك قرص أرتدي بيشك ويقولي نتي تسوي سي ويتكتي حكي مرسايو وتداسي بس كراعي سايبتك وأنا كده بعرري inantii baan u tagay waxaan ku ur walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga guurteen aan garan waayay waan soo baxsaday aabinay mooyana gurigiigiiso gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyadii oo markaas la guursaday oo ilmo yar oo kala haysata saddexdii hablood walaalahayna la joogaan hooyaan u imitay waxaan ku ur hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana raba inaan aabbo la joogay waxaan rabaa inaan adigu la joogo hooyo waxay igu tiri anigii aabaha go'aan baan gaarnay inaan isuguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabaha ku noqo aabaha la joog aniga hay imanin anuu nin kale aan guursaday nolol kale aan samaystay aabahana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kale biilin waayay adiga afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho aabaha la garaaco oo aabaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabaha la wacay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa tii waa ilmo yar hayla joogtay biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabbo wadiiday wuxuu biir ma bixinayo hataa saddexda caruura aad haysatana ku darisida afarka gadhigsina waa alxamdulillah hadaanad ku dareynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaadhiga lay saaray Ethiopia lagu celiyay sideedii baan sameeyay wanaamu sugay aabahay iyo reerkii iyo dadkii u dhanbeel culuubay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada ee waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay wuu diiday taas wuxuu dhaan biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo ee waxaan rabaa inaan hablaan la joogo haddii kale xataa laygu celinay aabbo inaan halay raaciyo maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday cidi timaaga hagaajinayn cidi i daryeelaynin aabahayuna gurigii joogay inuu yahay dee qof subaxdii baxaya oo habeenkii 9 habeenimo soo yeene adigu hooyaday mar labaad markii dambe wax isku dayday in aabahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yar soo baxsanaysa
ha joogtay waxbarasho la-aan baa haysee biilka bixi. Aabbay wuu diiday. Wuxuu dhaha ma hablaha wada haysanaysaa ama wada isu celinaysaa inantaas. Adna saddexdaada hayso ana saddexdeedaan haysanayaa. Waxaa dhacday inaan aamus waayo oon ooyo oon qayliyo oon diido inaa Itoobiya lagu celiyo inaa guriga aabbahay dib lagu celiyo dhibaato fara badan inaan guriga ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leedahay nin kala qabay. Hooyaday xal kale markay weyday labadii hablood eega waaweynaa baa la raaciyey oo lagu wuri kaxeeya baliidiku oo ka soo dhaadhiciyay aabaheed inama aabaheed la joogto ama ina bil lasoo diro si waxbarashada nolosha lagu dabaro. Aniga iyo labada habloodayga waaweynaa baa Itoobiya ku noqonay. Guriga aabbahay baa tagnay. Aabbahay baa u sheegnay waxaan ku nidhi aabbo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo. Labadii hablood kale waaweynaa baa la socdaa. dee aabbo biilna sii. Aabbahay wuu diiday. Kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo. Marka aabbahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo ilmaha yar soo baxsanaya ee kolba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa. Aabbahayna wuxuu diiday inuu tanaasulo uu yiraahdo ilmaha yar soo baxsanayso hooyadeedu daa. labadu tanaasul waayeen. Waxaa dhacday inaan Itoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaado. Waan ooyey waan qayliyey wax kasta waan sameeyey. Hooyo waan u sheegay dee heer waxaan gaaray xataa haan waanan gaaray hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda. Hooyadii haddana waxay isku dayday inay aabbay dib ku qanciso inuu biilka bixiyo. Aabbay waa lala hadlay waxaa lagu yidhi inanta yar joogto bale biilka bixi. Aabbay wuu diiday. Hooyadii taladeeda waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan anigu guriga kasoo gudin. Aniga waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo. Dhibaatada ugu daran markaas igu dhacday. Aabbahay wuu diiday. Hooyadiina way diiday inaan guriga joogo. Waxay noqotay inaan igu dhanbaa lagu diraya oo Itoobiya lagu diraya ama Hargeysa gal. Ilma yar baan Saacid baan u yaray markaas. Hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay waxaan ku hooyo bal markii ugu dambeysay aabbahay waa anigii maqashay inuu diido dee markaas ugu dambeysay. Sidii baa dhacday oo aabbahay baa la wacay. Waa loo sheegay waxa lagu dhina tiireed inay soo noqoto way diiday. Biilka ma siinaysaa guriga ha joogtay bise biilka siin maysid aniguna magaalada ku sii daaya. Aabahay wuxuu yiri anu biil ma siinay. Hooyadiina waxay tiri hadduu aabahay biilka bixinayn anagu ma haynayo. Dhibaatada ugu darnata markaas ay dhacday. Gurigaan joogaa hooyadii Hargeysaan joogaa meesha ma kala garanayo magaalada ma kala garanayo ilma yar baan ahay dee familygayga kale magaalada degan xataa ma garanayo. Hargeysa iyo Itoobiyana dee ma kala garanayo meeshan inay Somaliland tahay meeshaan ka imid inay Itoobiya tahay. Keliya waxaan garanay inaan Hargeysa joogo Hargeysa hooyadii joogto. Hooyadii waan bariyay waan ooyey waan qayliyey waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqonayo Itoobiya Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxay family magaalada degan yahay laakiin ma garanayo. waan isku dayna ku qanciyo hooyo laakiin aabahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo. Aabahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biil ku bixiyo. Aabahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yiraahdo ilmaha yar iska daa hooyada la joogta. Hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahdo inta yar soo baxsan si aabeediisa iska daa iska ka joogta. Waxa dhacday labadoodii markay diideen hooyo habeen shalay oo kala nimid Hargeysa 10 habeenimo weeyaan way timid gurigaan oo fadhiya waxay ku tiri hooyo mad ku noqon aabaha
أقول ما يكون نقنع حاجتي هذا ما حد سمينا سميست وأقول وحربين هذه كل شيء حتى وحبر شيء قدرين حتى أقول وحبينا كعنين حتى يبدي ما تدو تهي ينبي لبحيو وأقول أنت دي يا وحبر شيء لو بعيه برشادنا اللي سكده يا أنت دنا اللي سكده كلية تنسكتشو كوريا وديت هو واحد تري dhibaatadu badan aabbahabaa keenay markii horena aabbahabaa diiday inaan idin wada haysto iminkana isagaa diiday inuu biilka bixiyo markaa waxaad samayn kartaa inay Itoobiya ku noqotid guriga aabbaha iyo inaad magaalada gasho markaa waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabbaha magaalada gasho markaa waxaan ku hooyay ma rabo inaan guriga ku noqdo gurigii aabbahay hooyadiina markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelahaas buu dhashay waxaa dhacday habeen waa markaan ku sheegay shalay oo kale Itoobiya ka imid habeennimadii hooyadii ilaa hadal kalamnimadii waa tan ii sheegtay diyaarinka ilaa hadal waxay samaysoo kale ma jirin oo ahayn diin iska gidhiiso diini guriga saarto hooyadii iyo inuu weyno walaashay curadeeda way wada hadleen heshiisku wuxuu noqday in caawa tumaka habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaab laga saaro oo la igu dhaw magaalada Galadaba sidii baa dhacday hooyadii iyo gabadhii weynayda walaashay hayd way sheekaysteen waxayna ku heshiiyeen in Itoobiya maadaama Itoobiya diiday guriga aabbahay inaan ku noqdo inaan guriga liigu hor iska baxay magaalada iska kala sidii baa dhacday waan iska waa inan walaashay ah oo iyada taweyn toos weer ah bay timday oo markaa guriga laga soo saaray may gurigan ku jira iyo waxay ku heshiiyeen in guriga ka saaraan laakiin anu ma ogiyo guriga qol ka mid ah fadhiyaan inantii walaashayd bay timday waxay ku tiri walaalo waadiga diiday in Itoobiya lagu celiyo aabana waa ka diiday inuu biilka bixiyo wax kale oo la sameyn karaana ma jirto oo ahayn inaad maxay dama guriga ka tagto ama inaa berito la subaxda gaariga lagu saaro waxaan ku wari berito la subaxda gaariga la masaaro kama tagayo Itoobiya kuma qonayo xagana joogaya hooyadii gabadhu noqotay way soo wada hadleen habeennimadii abaaratumka habeenimo markay tahay hooyadii inantii walaashay bay soo dirtay waxaa ku tiri dharka ay sidato intaad u qaatay albaabka soo xidho sidii baa dhacday inantii walaasheed hataa tii weynid maaha tii yareed waan isku fiicannahay xagina joogtaa inantii baa timiday waxay ku tiri walaalo xel kale wala waaye waan ahayn in amba Itoobiya loogu celiyo amiinad guriga ka tagto haye baan ku uri maxaa la sameynayaa markaa waxay ku tiri waa tumankii habeenimo adeeraa guriga imanaya adeer waa ninka hooyo qaba adeeraa guriga imanaya intuun adeer iman una ku arag inakeen dibadda meel buu ku geynayaa waxaan ku xigin tagnaa walaalo manaba meel kala garanaya waxay isku dayday inay fahansiiso waxay ku tiri hooyo adeer markii guursanayso waxay ku heshiiyeen 3 caruur inay hayso ee kuma heshiinin inay 4 caruur hayso adiguna dawad ku soo dhaxdhacday aabban uu diiday inuu biilka ku siiyo marka diina si joogto ma noqonayso meel baan ku soo raadinayaan ku geeyo caawa oo iska seexatid marka dad berito Itoobiya ku noqonayso iyo hataa Hargeysa ku joogso
sidii baa dhacdayo inantii walaashay habeenkii 10 habeenimo gurigeyga soo kaxaysa waxay ii soo raadisay guri family qof family ah oo liigeeyo si aan gurigaas u joogo habeenkii waan xasuustaa ilaa waqti dambe ay nagu qaadatay inaan guri lasoo helo liigeeyo guri baa liigeeyey familiga haddaba rabo inaan tiitalka qofka sheego laakiin familiga inantii walaasheed gurigii markay geysay way ka timideen aniga keligii guriga ku soo hadhay dadkii xaafadii liigeeyey baan la hadlay uma sheegin naari ku saatay laakiin waxaan ku uri waan isoo booqday haye baa la idhi gurigii qofkii familigeyga ahaa habeenkii baan la seexday subaxnimadii waxaa laga rabay inaan guriga ku noqo soo maa waxaan ku urigay guriga hooyo ma garanayo dad igu celin lahaydeen xataa guriga hooyo ma garanayo hooyana meeshuu ka gurtay ka waran markaa haddaan idinka iskala kin joogo gabadhi way soo dhaweysay si fiican bay la hadashay iska joog bay u tiri iska fadhi haye sidii baan gabadhii gurigeedii kaga mid noqday ma la joogto ma la joogay gabadhii familigeyga ahayd muddo markaan la joogay ilaa 2 bilood si fiican bay la dhaqmi jirtay markii dambe ay aragtay inuun aabban iga soo wardoonin hooyan iga soo wardoonin aabbana Itoobiya joogaa wuxuu moodayay inaan hooyo la joogo maadaama aan Hargeysa joogo hooyana waxay moodaysaa in Itoobiya ku noqday cidina kaamay soo wardoon hooyan igama soo wardoonin aabbana igama soo wardoonin gabadhi way yaabtay waxay ku tiri hooyadaa meeday way joogtay mayna ku soo raadinayn waxaan ku hooyo waxaan ku Itoobiya tagay sidaas ay moodaysaa baan ku oo aabbana Itoobiya joogaay dee wuxuu moodayay in hooyo la joogo adigu gabadhi markay aragtay inayna hooyana iga soo wardoonin aabbana iga soo wardoonin waxay la dhaqantay si aan qof loola dhaqmin heer han gaari xataa inaan anigu caafimaad qaban jirin ku jirin wadooyinka ku dhaco marka awood yaraan may dee hadal gumaysi qaylo inaa laygu yidhaahdo waxaan sameeye halashaan inaa layla dhaqmo si aan loola dhaqmi karin dee qof bilaadana ilaa goorma noloshaa ku jirtay waxaan ku jiray ilaa intaan kasoo gaadhay 16 sano kadib maxaa xigay door sana gabadhaa la joogay si fiican ilamay dhaqmeen waxbarasho meesha waxbaan baranayaa laakiin waxbarashadaan baranaya waxay ahayd waxbarasho aad marka 16 soo gaadhay aad weynaatay caqliysatay si noloshaa isu bedeshay 16 sano markaan soo gaadhay waxaan isku dayay inaan maxay hayday maadaama wax yaro bartay inaan shaqo raadsto gabadhin gurigeeda la joogay meel waa ka tegi kari waayo waxbarashada yaran tegayo kusoo noqdo si xun bay la dhaqantay gurigiina waa ka tegi kari waayo magaaladiina ma kala garanay oo meel kaloon tagoon dee waxaan ma garanayn waxaan isku dayay gabar baan la xiriiray familigeyga ah oo lambarkeeda raadiyey gabadhii baa lambarkeeda la siiyey gabadhii baan la hadlay gabadhii baan u sheegay ku walaal dhibtaasay haysatee kaale gurigeyga kaxee gabadhii baa gurigeyga kaxaysa gabadhii baa meel geysay guri kale oo iyadu deganiyadu iyadu joogtay geysay gurigii baan in muddaa 2 bilood joogay waan ka tegay qof kale familigan u tagay qofkii familigan oo la jooga baa shaqo raadsaday markaan weynaada intaasoo sanadood aabba igama soo wardoonin hooyadiina Hargeysa joogtay igama soo wardoonin
noloshaadana adaa iska wata sida doonta baad ku wadatiin saxa noloshaana wato dadka familiga dib walba ay geysanayaan waxay ka darnay in Itoobiya la wixiliyo maadaama hanan xagaasna gabadha abayaan isku fiicnay aabiyo hooyo labaduba ma reer iyo qoysas kala samaysteen ha abreer kala samaystay waxbarashada ilaa halkaad ka gaadhay waxbarashada markii hore iskuuliga ma darinba waxa la igu taris madrasada yaryar iyo waxyaabo yar laakiin markii dambe weynaaday baan iskuulka meel fiican ka soo biiray marka adaa iskii masixida ku aniski adaa iskii ilaa jaamacad waxbarashada ka gaadhay hada jaamacad aan dhigta waddigata ha jaamacad aan dhigta waana shaqaysaa waan shaqeeyaa dawladda aan shaqeeyaa laakiin dhibaatada waxa ugu daran waxa dhacday 4 sanadood baan shaqo raadinay afartaas sano shaqada raadinay meelaan jooga manaysan sidoo kale manaysan bas oo qof familiga baan joogay bas lagama bixinayn dar lama iibin jirin waxaan xidhimanaysin xataa markaan shaqada raadinayay maraan wasaaradda arrimaha gudaha shaqo ka raadinay subaxdii lug baan ku iman jiray wasaaradda doorkiina lug baan kaga tegi jiray shaqadaad raadinaysa maxay ahayd doonaysa in wasaarad ka qabato inaan wasaarad shaqeeyo maan rabin ee waxaan rabay shaqaan wax ku bartay inaan la siiyo muhiimadda shaqo raadinay waxay ahayd inaan noqdo qof taagan maadaama dhibaato badan ku dhex jiro maxaad salaad marka wad qaban kartaa oo wasaarad ka qaban kartaa waxyaabo fara badan baan qaban karayo iskuulka waan dhiganaya waxna waan bartay computer baan bartay computerka markaan baranayna waxay ka caawiyey nin dawladda shaqo soo doontay computerka isaga ii diray computerka marka hore waxaan u imiday aniguna garanay shaqa dawladeed wax laga qabto kadib waan u sheegay xaaladda waxaan ku dhibtaas haysta saaysaasa jirta waxaan rabaa inaad caawiso isaga igu orada computer soo baro dawladda hadday rabto inaad u shaqayso waa inaad wax garanaysaa kadib sidii baan computer kusoo dhigtay luuqadda ingiriishka soo bartay isaga iga caawinay intaasoo dhan inaan magaciisa sheega ma rabe kadib sidii 4 sanadood baan raadinayay shaqo dawladdu keliya haddana shaqo kama raadinayna meel fara badan meelaha beerafatada shirkadaha adu meelo badan ba shaqo ka raadinay ugu dambeyn alxamdulilah hadda waa shaqo tegay waa shaqeeyaa dawladda waa shaqeeyaa waxbarashadeedii hooyadii iyo aabbahay ma oga heerkan waxbarashada ka gaadhay hadda jaamacad aan dhigtaa dawladda ayaa bixisa ma oga hooyadii iyo waxbarashadeeda heerkii taagsan tahay dawladdaad kale u shaqeysaa dawladdu way fara badan tahay institutionkaad ka tirsan tahay booskaad ka shaqeysa midna la wadaagi kartaa meesha ka shaqeeya la wadaagi karaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta inaan ka shaqeeyo oon wasaaradda u shaqo tegana adiga ka mas-uula andara oo adiga ah qofkii iga caawiyey inaan wasaaradda u shaqo tago muddo hadda waxaan jooga 3 sanadooda jaamacadaan dhigtaa maalintan shaqada bilaabay ayay noloshayda dib soo dhisantay alxamdulilah hadda waxbaan bartaa waan shaqeeyaa noloshaydana dib baan usoo dhisay laakiin waxaa jira weli dhalinyar fara badan oo anigay lamid ah dhibaatooyinkaa soo maray wax yar baan ka hadlay oo ma rabo inaan faamil ahaan taabto dhibaatooyinka waxyaabaha qaarkood igu dhacay dhibaatooyinka maanta ay haysta ugu badan waxa kamid ah inaana faamiliga hooyadii garanayn oo maanta walaashay hooyadii aabbahay dhaleen hadday iga hortimaado isma salaano
dhibaatadana isgaranaa laakiin hooyaabay dhibaatad ka timid iyaga caruurta aabba u dhalay ayadaa uu dhalay ama hooyada islaanta kale kadib ay iskurseen iyo kuway hooyo odayga kale u dhashay ma isgaranaysana walaaladiin hooyo kuwii ninka kale u dhashay isma garanana maan aragba markiisay joogeen laakiin aabba ku xaas kale u dhashay yar baan ka garanaya inta badan baan garanaya hadda intaanan aabbahay la joogin 10 sano ka soo wareegtay 10 sano wixii ka dambeeyay wuxuu dhalay ma garanay hooyadayna caruur ma haysta laakiin ma garanayo tiradoodana ma garanayo aragtidoodana ma garanayo shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga idahab